farxaddu waa shayga ugu muhiimsan oo aan wada jecelnahay inaan u helno si joogto ah sababtoo ah farxaddu waxay soo muujisaa quruxdeena waana shay aan marnaba la iibsan karin. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. magacaygu waa Qaasim Maxamed Daacad, waxaan ahay saaxiibkaaga guusha iyo horumarka. si aad uga mid noqoto asxaabta ku tixan janalka Hagaha Nafta, taaba badhanka guduudan oo ay ku qoran tahay subscribe, kadibna furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya uu soo gaaro muuqaaladeena. anagana waxaynu ku ballan qaadaynaa inaadan ku khasaari doonin ku soo biiritaanka janalka, waxaadna naga heli doontaa si joogto ah muuqaalo wax badan ka bedeli doona noloshaada oo dhan. hagaag, farxadda ugu weyn ee uu qofkeen helo wuxuu ka helaa isla nafsadiisa. farxadda dhabta ah kama timaado bannaanka ee waxay ka timaadaa gudahaaga. bal u fiirso dadka aaminsan farxadda in laga helo waxyaabo kale sida lacagta oo kale. maya, arrintu sidaas ma ahan. sababtoo ah farxadda laga helo shayada kale sida lacagta oo kale ma ahan farxad waaraysa oo si joogto ah aad u helayso, balse waa farxad ku meel gaar ah oo ku xiran shaygii ama lacagtii aad ka heshay farxadda, oo ah shaygaas hadduu kaa baaba'o ama lacagtaas ay kaa baaba'do sidoo kale ay baaba'ayso farxaddaada oo dhan. balse waxaynu ka hadlaynaa waa farxadda dhabta ah ee waaraysa ee marnaba aan kaa nusqaamaynin. waa farxadda adigu aad ku abuurato gudahaaga. waa waxa adiga aad abuuran karto. waxaad isweydiinaysaa sideen ku abuuran karaa farxaddaas joogtada ah ee dadkoo dhan ay wada raadinayaan. hawalwalin, waxaan kuu hayaa 6 tallaabo oo aad ku abuuran karto farxad joogto ah oo aan marnaba kaa nusqaamayn. waa haddii adigu aad si joogto ah u samayso tallaabooyinkan soo socda. tallaabada 1, aqbal nafsadaada. ku raali noqo sidaad u abuuran tahay oo aqbal naftaada kuna qanac si walbo aad u samaysan tahay. dhibaatada ugu horeysa ee qofkeen farxadda ka qaadata ayaa ah inuusan ku qancin naftiisa dabiiciyan sida ay u samaysan tahay. ogsoonow, adigu marka aad aqbasho kuna qanacdo naftaada ayaa dareemaysaa farxad, dadkuna ay kugu qancayaan adiga. ogsoonow sidaad adigu u samaysan tahay inaad ku qurux badan tahay oo aysan jirin qof kuu dhigma adiga. uma baahnid inaad iska dhigtaa qof kale, waayo quruxdaada lagama dhexelayo qof kale. aqbal nafsadaada oo hor istaag muraayadda, lana hadal kuna dheh erayadan qiimaha badan nafsadaada. waan ku jeclahay naftaydaay, waana kugu qanacsanahay naftaydaay. adigu haddii aadan jirin aniguna ma jiro. kadib waxaad dareemaysaa jacayl iyo qanaacad aad ku qabto naftaada. aqbal naftaada. naftaada ayaa ah qofka kaa mudan inaad siiso jacayl iyo farxad. qofnaha ka sugin farxaddaada, adiga is aqbal oo adiga abuuro farxaddaada. kadib waxaad noqonaysaa qofka dunida ugu farxadda badan ee dadkana siiya farxad la mid ah miduu isaga nafsadiisa siiyo. tallaabada 2, jeclow naftaada. qofka ugu horeeya ee kaa mudan jacayl dhab ah waa nafsadaada. qiimay nafsadaada oo ku samay horumarin joogto ah. isjeclow adiga, dadkuna way ku jeclaanayaan. marka qofkeen uu jecel yahay nafsadiisa wuxuu awood u leeyahay inuu ku noolaado farxad joogto ah, sababtoo ah farxaddiisa kuma xirna shay ama qof kale. wuxuu jecel yahay nafsadiisa, wuxuu ku qanacsan yahay sida uu u samaysan yahay. adigana jeclow nafsadaada si shuruud la'aan ah, kadibna waxaad dareemaysaa inaysan jirin qof adiga kaa farxad badan. tallaabada 3, ha isla barbardhigin qof kale. qof kasta wuxuu leeyahay haybad iyo muhiimad u gaar ah. ma jirto qof kuu dhigma adiga. waayo dunidan waxaa laguu keenay adigu inaad is ahaato kuna guulaysato sida aad u samaysan tahay. laguma dhihin u ekaaw cid kale. waxaad ku qurux badan tahay adigu inaad is ahaato oo aadan isku ekaysiin qof kale, lana barbardhigin nafsadaada qof kale. ma og tahay marka aad naftaada la barbardhigayso qof kale waxaad meel uga dhacaysaa qiimaha naftaada. waxaad xayeysiinaysaa qof kale. waxaad yasaysaa heybadda iyo quruxdaada u gaarka ah nafsadaada ee alla weyne uu ku abuuray. ma og tahay
marka aad isla barbar dhigayso qof kale inay daciifayso qanacsanaanta naftaada oo aad noqonayso qof mar walba murugaysan oo ay ka muuqato duruufta. Maya ha noqonin sidaasi. Hala barbar dhigin naftaada qof kale siduu doono ha u ekaado, wuxuu doonana ha haysto. Adiga quruxdaada waa adiga in aad is ahaato. Tallaabada afaraad, la tartan nafsadaada. Uma baahnid inaad la tartanto qof kale, sababtoo ah waxaaba kugu filan inaad adigu la tartanto isla nafsadaada. Inaad horumariso meelaha aad ku liidato, inaad wax badan ka qabato waxyaabaha hoos kuu dhigaya ee kaa qaadanaya farxadda, inaad aad u samayso waxyaabaha kugu dhiirigelinaya inaad hesho farxadda joogtada ah. Sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad mar walba dib u habeen ku samayso ficiladaada iyo weliba fikirkaaga. taas ayaa ah la tartamida nafsadaada. Ogow, sanadkii la soo dhaafay sidaad ahayd inaad ka fiicnaan doonto sanadkan sidaa tahay, sababtoo ah waxaad la tartamaysaa nafsadaada. Nafsadaada shalay siday ahayd iyo maanta siday tahay waa farqiga u dhaxeeya ee adiga kuu suurtagelin kara inaad noqoto qof ka warhaya meesha uu cagta dhiganayo iyo halka ay ka xigto guushiisa. sidaa darteed hala tartami cid kale ee adiga la tartan nafsadaada. Tallaabada shanaad, caawi dadka caawinaada u baahan. Caawinta dadka kale waxaa laga helaa farxad iyo qaninimo. Qof kasta qofka uu ka wax bixis badan yahay wuu ka farxad badan yahay. Caawinaadu kaliya ma ahan wax siismo. Waxaad ku caawin kartaa qof talo wanaagsan ama xoogaaga ama hantidaada, kadibna waxaad dareemaysaa farxad aad u qiimo badan oo uu dareemi karo kaliya qofka wax bixiska badan ee dadka caawiya. taasna waxay ku dhaxalsiinaysaa inaad noqoto qof farxad badan dadkuna farxad siiya. Tallaabada lixaad, ka fogow inay ku saameeyaan dadka hadaladooda. Marnaba ma dhici karto inay dadku ku wada ammaanaan, marnaba ma dhacayso, horena uma dhicin, hadda kadibna ma dhici doonto inaad raali geliso dadka oo dhan, sababtoo ah dadku waxay u samaysan yihiin mar walba inay ka falceliyaan ficiladaada iyo qaabkaaga. sidaa darteed ha u ogolaan dadkaas hadaladooda inay saameyn xun ku yeeshaan nafsadaada oo ay kaa qaataan farxadaada. dadka ma joojinayaan inay wax kaa sheegaan, dadku ma joojinayaan inay nacayb kugu abuuraan, dadku ma joojinayaan inay murugo kugu abuuraan kaana qaataan farxadaada, balse adigu ha u ogolaan inay faragelin ku sameeyaan farxadaada. adiga ayaa xorriyadda u leh nafsadaada, adiga ayaa aqoon u leh nafsadaada. dadku ma yaqaanin nafsadaada, kaliya waxay arkaan muuqaaga ayayna wax ku xukmiyaan. sidaa darteed adigu ha u rumayn waxyaabaha ay kugu xukminayaan, sida inaad tahay qof aan farxad lahayn, qof weji cabuus ah, qof aan horu socod lahayn. markay hadallo noocaas kugu yiraahdaan, adiga ha u rumayn hadaladooda ee ku qanacsanoon nafsadaada. adiga ayaa ah qofka aadka u yaqaan nafsadaada. waxaa tahay qof farxaan ah, adiga ayaa is og. waxaa tahay qof dadka la jecel farxad, adiga kaliya ayaa is og, laakiin dadku kuma oga. sidaa darteed hadallada dadka ay kaa sheegayaan marnaba ha u ogolaan, waayo waxay kaa dhigayaan qof la saaxiiba murugada kana fog farxadda. ugu dambeyn, farxadaada kuma xirna qof ama shay, balse waxay dhex taallaa gudahaaga. la soo bax farxadaada iyo dhoola cadeyntaada, kadibna waxaa soo muuqanaya quruxdaada oo dhan. waxaan ku leeyahay iigu noolow nolol farxad leh, jacayl leh iyo isku filnaansho nololeed. waxaa la soo gaaray tookadaadii aad dhiirigelin lahayd janalka Hagaha Nafta. ku qabo muuqaalka like, kadibna u gudbi asxaabtaada oo u sheergaree asxaabtaada ku kala jirta facebookkaaga, iimahaaga, whatsappkaaga, instagramkaaga iyo aalad walba oo aad ku gaarsiin karto asxaabtaada. weli haddii aadan ku soo biirin asxaabta ku tixan janalka Hagaha Nafta, riix oo taabo bandhigga guduudan oo ay ku qoran tahay subscribe, kadib furo gambaleelka si aad u hesho muuqaal walba aynu soo dhigno. sidoo kale ku soo gudbi fikradaada iyo taladaada wanaagsan qaybta hoose ee commentiga. inta aynu kaga kulmi doono goordhow
muuqaalka soo socda waxaan ku leeyahay aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalka. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء.